السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu waqtigu i baray in dadka kuwa ugu waxyeelada badan ay yihiin kuwa aan ku kalsoonaaday in badan. wuxuu waqtigu i baray in shay kasta ku bilowda yari dabadeedna karo yacni weynaado, musiibadaas ay ku bilaabato weyni kadibna ay yaraato. sidaa awgeed markay musiibo igu dhacdo ay tahay inaan sabro inta ay ka yaraanayso. wuxuu waqtigu i baray in damiirkaygu yahay qofka igu lamaan ah oo markastoo aan gafgala ii sheego cidda i arkayso. waxa aan bartay in ay mar walba qasab ahayn inaan guulaysto, laakiin ay qasab tahay inaan markasta ku fikiro sidii aan u guulaysan lahaa. waxaan ogaaday in qofka dakhligiisu yahay milyuun shilin aanu 1000 jeer ka shaqo badnayn kan dakhligiisu yahay 1000 shilin ee sirtu tahay sida loo kala maskax badan yahay. waxaan ogaaday in orida fiican ay tahay tan quruxda ku beerta qalbiga ninkeeda. wuxuu waayahu i baray in ay ceeb tahay in dhagax qudha aan 2 jeer ku taranturoodo. waxa aan bartay in dadka ilaabayaan dhaqsaha aad howl u fulisay, balse ay weligood xasuusanayaan waxaad u qabatay. markaas ayaa iska dhaafay degdega, xooggana saaray sidii aan howl u qaban lahaa sida ugu quruxda badan, muddaba ha igu qaadatee. waxa aan bartay in hadiyad yar oo aan la filayn in aan qof siiyo ay ka qiimo badan tahay hadiyad weyn oo qofka sii ogaa in aan u keenayo. wuxuu waqtigu i baray in aan isku hadlayn saaxiib aan lacag siistay, waayo waxaa imaan doonta maalin uu iibsan doono qof iga lacag badani. wuxuu waqtigu i baray in mar kasta dadka i xaasidaya bato ay astaan u tahay in aan u sii dhowaaday guulahayga iyo horumarkayga wacan. wuxuu waayuhu i baray in qofka inta badan naftiisa uun ka sheekeeya yahay qof aan kalsooni badan ku qabin naftiisa. wuxuu waqtigu i baray in haddii aad doonayo saaxiibtinimo waarta ay qasab igu tahay inaad diyaarsada xabaal mar walba afka kala haysa si aan uga aaso qaladaadka saaxiibadeeda. wuxuu waqtigu i baray in qofka ceebahayga u adkaysan karaa uu yahay sayidka yacni madaxdayda xitaa haddii uu yahay shaqaalahayga. waxa aan bartay in sacabka oo aan tumaa ay tahay sida ugu fiican ee hadal ugu dhexgeli karo qof hadlaya anigoo aan ka caraysin qofkaasi. wuxuu waqtigu i baray in jaceylku yahay gol jilicsan bogta ugu weynna ninku yeesho. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.